السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين وإن له محاسوغيسين ترتورة برنامجك ميلفو قارسية أدي أدنا وأني كما هاد علنايا برنامجك شير قرية برنامجك قارسية ميلا ومدنيهي يوادي رجلين أدي أد وحن وما هاد علنايا ومدى الصوماليات ميل كستو إي جوكتان وحن لي سنة خير قبا وبركة له ووناق يبرواق إنو دميسو وإنو استعلانو لا إنو قدقو سنة كان waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo horta hooyo maxay tahay hooyo goormay maaragtay ay hooyadu hooyo fiican goormay noqon kartaa hooyadu goormay hooyo fiican noqon kartaa hooyadu waxay hooyo fiican noqon kartaa markii goormaa horta hooyada la ogaadaa inay hooyo fiican tahay hooyada waxaa la ogaadaa markii inay hooyo fiican tahay markii dib la soo kulmo markii dib la soo kulmo ama ilmuhu odow ku xanuunsado oo ka dambena ay agoomowdo ama odow ka dhinto ilmihii banaanka ugu soo dhacaan markaasaa la ogaadaa hooyada fiican iyo hooyada xun hooyooyinku waa labo hooyo ilmaheeda aan dan ka gelin oo nafta oo liilow iska gashay iyo hooyo ku mitida maxay ku kala duwan yihiin marka hooyadu inkaas labadaa hooyo hooyada u mitida ilmaheeda dhexda u xirata ilaalisa moralkooda iyo niyadooda inay kor u qaado mirahooday gurataa sida hooyadan aan inii soo wado ee aad daawan doontaan insha allah hooyadan waxaa soo gudbiyey astaan t v aa soo gudbiyey hooyadan waa hooyo beeraley ah waa hooyo joogta wadankii hooyo waa hooyo joogta tuulo la yiraahdo maryooley tuulo la yiraahdo bay joogtaa hooyadan waa hooyo danyara waa hooyo iyadoo halkaa joogta agoon ku qaadatay 8 ciyaal ah agoonteedii u istaagtay inay wax barto meel gaarsiiso guriga markuu tirkiisu uu dad aqoon leh ka soo jeedo hooyadaas waxay sheegaysaa ama caddaynaysaa inuu ninkeeda nin aqoon-yahan ahaa oo wax bartay markii guri aqoon ku dhisan yahay guri maskaxda uu ka dhisan uu yahay guri aqoonitaal uu yahay haddii xataa ilaahay kala dhantaalo oo uu laba garab kala noqdo ma dumo mana baaba'o ee wuu kocbacaa oo meel ka fiican buu gaaraa waxaana markhaanti kuuga ah gurigan oo kaleeto because aabbaha ama hooyada mid baa meel lagu qaadi karaa mar walba la islama joogi karo mar walba lama wada noolaanayo marbay dantu kaa hoos baxaysaa marbay duruuftu kaa hiilinaysaa markaasaa la rabaa marka hooyada fiican la gartaa hooyadaanu waxay u istaagtay uma istaagin iyadoo ilma haysata inay maaragtay kaamira iska duubto uma istaagin iyadoo ilma haysata inay ummad isku dirto uma istaagin iyadoo ilma haysata inay qaranka burburiso ee waxay u istaagtay oy dhexda u xiratay siday ilmaheedu meel u gaari lahaayeen agoon hadday yihiin si ayan aqoonta iyo cilmiga ay dadka ugu dhaafi lahaayeen aabbayaashu haysto kuwa aabbayaasha haystaa maanta xabsiyada ku jira kuwa aabbayaasha haystaa dhimanaya laakiin iyadu maxay ugu talagashay inay ilmaheedu u kacaan hooyadaanu saasay ugu tala hooyada fiicanna waa wax lagu yaqaan waxaana garan kara hooyo agoon intay soo martay haddana dhexda u xiratay hooyo agoon intay soo martay dhexda u xiratay baa garan karta taasaana oo hooyo fiican hooyooyin agoon soo noqdo ilmoodi kala dhumeen baan aragnay laakiin hooyada agoon intay noqoto agoon la kulanto dhexda u xirata dal joog ama dibad joog waa isku mid ilmuhu mar hadday agoon noqdaan meeshaa rabto ku hayso waa isku duruuf waa isku system waa isku sibay wuxu dareemaan aday kugu xiran tahay marka sidaad u korin lahayd iyo sidaa wax uga qaban lahayd hooyadan bal aan dhegaysano maxay tiri hooyo walba waxaan jeclahay inay anoo kale ilmad noqoto hooyo sababtoo aniga anoo sokor qabo hore iguma heenin ilmahan daraadooda markuu aabbahooda iga dhintay ayay igu dhacday hooyo waxaa igu dhacay dhiigkar waa fahamtay umaleynaa labadaas wax igu daran male sokortaa la dejinaa markii la dhaha dhiiggaa kaco dhiiggaa la dejinaa markii la dhahna sokortaa kacdo iyadoo taas ay jirto ayaan dhexda u xirtay ilmahayga hooyo walbana waxaan jeclahay sidaas si labada waa maqlaysaa hooyadaas markii odag ka dhintay ilmihii oo madluunsan ay aragtay wax ay siiso aanay haynin ilmihii leeyihiin la guri fiican oo isjecel aabe aqoon leh oo aan qabiil ka dhaadhicinayn waa lagu necabyaa ka dhaadhicinayn reer hebel qoro u qaado ka dhaadhicinayn baa koriyey oo haayay markuu ka dhintay ilmihii waxay dareemeen inay cidlo taagan yihiin ilmihii waxay dareemeen inay asoogood ka hareen murug dareemaya bay dhexda u xiratay okay ubadka Soomaaliyeedna waxaan ayagana aan maxaa la dhahaa si aan ayagana ku wacyigelinayo sida kuwayga baari ay iigu noqdeen inay ayagana baariyaal u wada noqdaan waxbarashada u hoggaansamaan
ilaan maanta geedkan markaa abuurtadood waraabisid ayaa beri miro ka guranay waqti adag iyo waayo rafaad iyo waa aragtaan hooyada adag iyo waayo rafaad iyo dib Waxaa- kadib maalmo badan oo qoyskan ku rajo weyn waxbarano waa ka wiil la sheegay gaarno oo maanta koofidan aan watay cilmiga aan xambaarsanahay waa aragtay naytasaku waxa aan ku helay hooyo sababteeda waaye yaambadaa garabka u saaran bay ku korisay maantana koofiyad ugu xirtay adiguna adoo dibad joogta oo jaanis haysata oo cunugaaga aan lagu lahayn biil ka bixi oon lagu lahayn caafimaad ka bixi oon lagu lahayn maxay iskool ka bixi baad waxaad ka shaqaysay inaad barbaarin weydo soo saari weydo marka labadaa hooyo ma la isgarab dhigi karo hooyadan iyo hooyooyinka halkan jooga ama hooyooyinka aan aragnay la isma garbar dhigi karo hooyooyinkuna sidaasay u kala fiican yihiin waana midda aan ku leeyahay war qofka markaad qiimeynayso ku qiimee wuxuu yahay markaad guursanayso guurso wax ilmahaaga meel usoo saara alla naytasaku waxa aan ku helay hooyo sababteeda waaye markii laga soo tago in fan walba ayada nagu bixi jirtay iyo dadaal walba ay nagu bixi jirtay waxaan kasii aan la iloobi karin dhiirigelinta na dhiirigelin jirtay in aan heerkan aan soo gaarano ayadaan wax walba noo ahayd hooyada fiican waa wax lagu yaqaano hooyada fiican waxaa lagu yaqaanaa inay ilmaheeda moralka u dhisto hooyada fiican waxaa lagu yaqaanaa inay wax walba uga qiimo badan yihiin ciyaalkeedu inay ilmaheeda ka ilaaliso wax kasta oo moralkooda dib u dhigaya wax kasta oo qalbigooda la haraaya wax kasta oo fikradooda naaqusinaya waana midda ay ku guulaysatay waxay tustay inayan fiirinin nimanka jeebabka waaweyn inayan fiirinin ilmaha gaariyada iskoolka lagu geynayo inayan fiirinin ee ay tusto inay iyadu u joogto gaari doonaana kuwaa sidaa loo wadwado ay ka qiimo badan doonaan maantana waa laga yaabaa ku gaari lagu waday inuu dhacay iyaguna ay maanta heerkaa gaareen maasha allah tabaaraka allah allah ku xafidaan ku leeyahay anoo oo talo la hooyo tale fiican isiiso waxay igu talisay in aan barto kulliyadda beeraha maadaama markii kuu hamigay oo ahaa inaan waddanka waxa aan u qabto aan soo saaro shidaal bedelkeed in aan dhir soo saaro hooyo talo fiican isiis anina waxaan qaatay hooyo taadi aan qaatay alxamdulilah maanta waan ku faraxsanay in aan bartay kulliyadda beeraha waxaa ku doortay horta Gabadhina waa beeraha taa. bartay aniga waa aga horeeyay 2 sano waxaana go'aansaday inaan barto kulliyadda caafimaadka sababtoo kuwa beertii lagu soo koriyey qodaya walaashay oo habrirtay dhashay ma aragtaa oo qalal qabtay ku gubatay iyadoo jiko ku jirto habeen casho ay karinayso ayaa dab beertii lagu soo koriyey bay maanta ku damaashaadayaan bay maanta ku qaadanayaan farxadoodii iyo damaashaadkoodii waxa weeye waa ilmo dhinac walba laga dhisay guri fiicanna ku koray ee ku dhacday iyadoo qalka miirta ka tagay dabka digsigii iyadoo markaas dalciisa saliidii ee kulada wiilku wuxuu bartay beeraha kulliyadda beeruhu ka baxay gabadhuna kulliyadda caafimaadkay ka baxday gabadhu waxay ka sheekaynaysaa sababta keentay inay caafimaadka barato bay ka sheekaynaysaa iyo dhibkii ay aragtay ku dhacday digsigii dhinacii gacantina gubatay marka gargaaraha xamar loo keenay isbitaalaadkii xamar markaas ay hadda si u badan yihiin ma jirin waa yaraa marka isbitaal gargaar fiican u sameeyaa loo waayay meel oo ku taala silig gabadhu waxay sheegaysaa inay arrintan ku qasabtay inay barato anigoo waxay tiri aan waxba garanayn aqoon lahayn af soomaali ma ogay wax kala garanayn gabar baa naga gubatay isbitaal baa la geeyey dadkii daaweynaya xataa ma afgaranayo gabadhi daaweyn fiican may helin iyada oo weliba ajnabi loo geeyey sidaa darteeday ku go-aansatay inay halkayso laakiin waxa ka dambeeya waa derbigaasu yaa waaye waa hooyadaasu yaa waaye waa midaan qabiil aqoon hooyadaasu yaa waaye waa midaan iyadu jirkeeda diraynin hooyadaasu yaa waaye waa mid u istaagtay ilmaheeda inay dhaafiso kan gaariga lagu wado hooyadaasu yaa waaye waa hooyo isku kalsoon hooyadaasu yaa waaye waa hooyo dhinac walba ka dhisan iimaan iyo kalsooni iyo qadarin dhinac walba ka dhisan waa Amerikaanka oo Burundi baagu joogi jiro isbitaalka alala aan qoonin ee wax dadka dhaay marka waxaan leeyahay waad arkaysiin hooyada isbarbardhig ku samee hooyada meelaha fadhida ee cayda kaliya faafisa hooyada dhiigga iyo burburka kaliya ilmaheedu maqlaan hooyadooda waxun ka baxayaan ama dad isku diraysa ama ummad kala kaxaynaysa ama dal duminaysa ama dhalinyaro rabta inay baaba'aan ka fikeraysa iyo hooyada ma isbarbardhigi kartaa wiilkaas
hooyadan haysta iyo wiilka hooyada haysta isku meel ma gaari karaan. Gabadha hooyadan haysata iyo gabadha hooyada haysata isku qadarin ma noqon karaan, isku qiimo sama yeelan karaan, isku kalsooni ma noqon karaan. No baan ku leeyahay. Haddaa tahay marka hooyo daciif ah, haddaa tahay hooyo wax kale ku mashquulsan, haddaa tahay hooyo ka hormarisa wax walba danta dadka kale ama xumaanta, haddaba cimri qaadashaha ku noqoto. Hay daawanin adiga ay daawanayo. بليس أم بليس برنامج كشير قريه هلك واحد وقو إيمانيسا قفت إسكاله معها قف قبيل قفت إسكاله معها قرندوميس هلك واحد وقو إيمانيسا دلين يرو نيد الله دسو أما دل أما هدلين I don't care دلين يرو أنا وإي وذا ويل شيدي وإي وذا قبضه جوا بعد وقو إيمانيسا وحنا أكسم بعد وقو إيمانيسا هداد مركا أي تاس قنعسو يشير قريه هداد يقو عصب تاي سبسكرايب ده لايك تصار فافي هدا هوري إلى جوكتنا مركز تلايك تيسا إينا شير قري كومنتيغو ديرجلين بو إيه لايكتو ديرجلين بإيتا وحيابا بدنو هايو أو ويل كاغا أنفعايو أو أديغا كو أنفعي دونو أو آدن مقلين أو آد مقلي دونتو بانكو هايا سي أنكو وسو قد بيو يديرجلي واحد يقول ديرجلين سلعاقي سيكو مالي يفنقريكو مالي وحان كليو أنكاربا ولايكتا iyo subscribe-ka iyo share-ka iyo daawashada iyo commentiga qiimaha badan dadka commentiyada qiimaha badan ii soo dira inkasta ay badnayn waxaan leeyahay thank you so much kuwa ii share gareeya waxaan leeyahay thank you so much gabdho waxaan arkayay an subscribe dhahay I don't know waxa ii dheen oo youtuber ah I don't know laakiin kuwa kaleeto baa ka badan aad iyo aad baan inii ku mahad celinayaa aad baan inii ku salaamayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu dhalinyarada maskaxdooda soo celiyo hooyooyinkana in fiicanna in maaragtay kuwa ay soo saaraan ay dalka qabsadaan waana in salaamaya walaashayna nadiif qaran oo in leh dhalinyaro midnimo oo ah kelmadeedii u dhameysay isku xirnaan iyo kalsooni hooyada wanaagsanay